siyaaya xilka wasiirka warfaafinta oo ka hadlaya shirka igaad ayaa waxa uu yiri shirka wasiirada igaad ayaa markii ugu horeysay Muqdisho ka dhacay muddo 29 sanadood kadib walow sanadkii 2015 lagu qabtay magaalada Jowhar 9 Janaayo 2015 ayay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku boobay urur goboleedka igaad soo gaareen magaalada Muqdisho oo 10 Janaayo oo maanta ay uga qayb galeen shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka igaad wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa wasiirada igaad ku soo dhaweeyay Muqdisho dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalalka igaad uga mahadcelisay ka soo qaybgalkooda isgarab istaagooda shirkaasi iyadoo arrinkan ku muujisay horumarka ballaaran ee dalka uu gaaray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa shalay galab kulan la qaatay wasiirada arrimaha dibadda ee igaad ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ergeyga midowga Yurub diblomaasiyiin kale oo ka soo qayb galay shirkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirka ka jeediyay qodobada uu uga hadlayay xaaladda dalka Soomaaliya horumarka ballaaran oo dhinacyo badan ay ka sameysay dowladda siiba dhinaca amniga siyaasadda horumarka dhaqangelinta nidaamka federaalka madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda ay ka go'an tahay sidii dalka oo dhan loo nabadeyn lahaa isla markaana looga hirgelin lahaa doorashooyinka sanadka 2016 wasiirada igaad oo booqasho 2 cisho ku jooga magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa laga filayaa in dib ay ugu laaban doonaan dalalkooda siyaaya xilka wasiirka warfaafinta oo ka hadlay hirgelinta mashaariic horumarineed ayaa yiri wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ee Soomaaliya ayaa in muddo ah waday qorshaha xasilinta dalka iyo sidii gobolada dalka oo Soomaaliya looga hirgelin lahaa mashaariic horumarineed 4 Janaayo ee sanadkan ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ee Soomaaliya ay maamulka degmada Kuntuwaare ee gobolka Shabeellada Hoose u gudbisay qorshaha mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo degmadaasi wasaaradda ayaa qorsheynaysa in shacabka Soomaaliyeed ee degmada Kuntuwaare lagala tashado nooca mashaariicda ay doonayaan si ay mashaariicdaasi u noqoto mid ka hirgasha degmada oo dadka oo dhan ay ka wada qayb galaan gudoomiyaha degmada Kuntuwaare ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdiraxmaan Sabto Daahir ayaa waxa uu sheegay in ay soo dhaweynayaan qorshahan mashaariicda horumarineed looga fulinayo degmada Kuntuwaare ee gobolka Shabeellada Hoose isagoo uga mahadceliyay madaxda wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka oo isku howlay in la sameeyo mashaariicyo iyo sidoo kale qorsho lagu wajahayo horumarinta degmadaasi Kuntuwaare ee gobolka Shabeellada Hoose xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ee Soomaaliya Dr. Ismaaciil Jimcaali Calisow ayaa waxa uu sheegay in ujeedada mashaariicda horumarineed ay yihiin sidii dadka deegaanka loo siin lahaa fursad ay ayahooda uga tashadaan siyaaya xilka wasiirka warfaafinta oo ka hadlaya horumarka dhinaca federaalka ayaa yiri madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mudane Sharaf Xasan Sheekh Aadan ayaa 3 Janaayo ee sanadkan ku dhawaaqay qayb kale oo kamid ah golahiisa wasiirada iyadoo kulanka wasiirada 6 Janaayo lagu soo magacaabay guddiga amniga Koonfur Galbeed oo ka kooban 5 wasiir una qaabilsan amniga gobolada Koonfur Galbeed tan oo ujeedadoodu tahay sidii loo dardargelin lahaa la dagaalanka lagu jiro kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab xubnaha wasiirada la magacaabay oo ka kooban 20 xubnood ayaa lagu soo bandhigay kulan uu ka qayb galay Sharaf Xasan Sheekh Aadan oo lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay Sharaf Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa horay u magacaabay 4 xubnood oo ka tirsan golihiisa wasiirada iyadoo tirada guud ee wasiirada oo magacaabayna ee maamulkaasi ay tahay 24 xubnood tan ayaa waxa ay tahay horumar laga sameeyay dhanka dhaqangelinta nidaamka federaalka ee Soomaaliya iyadoo ujeedada ugu weyn ay tahay sidii dadka deegaanka ay ayahooda uga tashan lahaayeen siyaaya xilka wasiirka warfaafinta oo ka hadlaya horumarka dalka iyo qorshaha dhismaha guryo casri ah ayaa waxa uu yiri 6 Janaayo ee sanadkan ayaa Muqdisho lagu soo bandhigay naqshada deegaan casri ah oo magaalada Muqdisho laga hirgelinayo taasoo lagu magac daray Daarusalaam City iyadoo laga hirgelinayo duleedka waqooyi ee Muqdisho mashruucan oo ah kii ugu horeeyay ee laga fulinayo magaalada Muqdisho ayaa waxa fulinaya shirkadda Al-Buruj iyadoo uu maalgelinayo bangiga Salaam Somali Bank Sheekh Cabdirasaaq Aadan Macallin oo kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda Al-Buruj ayaa soo bandhigay qaab dhismeedka ay yeelanayso Daarusalaam City deegaankan oo jidka warshadaha u jira 7 kiiloomitir ayaa ka kooban dhismooyin hal dabaqayd iyo dhismooyin filooyin ah waxaana uu leeyahay suuq caalami ah masjid iskool barkadaha dabaasha garoomada kubadda cagta iyo kubadda kolayga
gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Cabdikariin Gabayre ayaa waxa ugu hambaliyay shirkadda Al-Buruj iyo Salaam Somali Bangi waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in fursadan ay ka faa'iideystaan. Maxamed Cabdi Colow oo kamid ah mas'uuliyiinta Salaam Somali Bank ayaa waxa uu sheegay in mar walba bangiga uu diyaar u yahay in bulshada Soomaaliyeed uu ka maalgeliyo isla markaana uu ka taageero dhinaca mashaariicda horumarineed ee wadanka. Siyaaya xilka wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka hadlay fulinta xafiiska caafimaadka iyo fayadhowrka ayaa yiri 7 January ee sanadkan Muqdisho ayaa laga furay xafiiska caafimaadka iyo fayadhowrka ee gobolka Banaadir oo la socon doona xaaladda caafimaad ee goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho. agaasimaha waaxda caafimaadka gobolka Banaadir Dr. Cabdullaahi Xasan Maxamed Nuune ayaa sheegay in xafiiskan uu ahmiyad gaar ah u leeyahay fayadhowrka isla markaana uu waxtar badan ku soo kordhin doono bulshada Soomaaliyeed ee caasimadda. Isagoo tilmaamay in howlo badan ay hor yaalaan taliyaha ciidanka deegaanka ee gobolka Banaadir gaashaanle sare Axmed Xasan Xuseen Mahdi ayaa waxa uu sheegay in ciidanka deegaanka iyo saraakiisha ka tirsan ilaalada deegaanka ee Xamar ay gudan doonaan waajibaadka uga aadan hirgelinta shuruucda xafiiska u degan. gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee maaliyadda mudane Ismaaciil Macalin Cabdi Goore ayaa furay xafiiska caafimaadka iyo fayadhowrka ee gobolka Banaadir waxa uu sheegay in xafiiskan uu wax weyn ku soo kordhin doono adeegyada sare ee dhinaca u qaabilaadda caafimaadka deegaanka gaar ahaan dadka Muqdisho. Siyaaya xilka wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka hadlaya horumarka garsoorka wadanka ayaa waxa uu yiri siyaaya xilka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Faarax Sheekh Cabduqaadir ayaa booqasho ku tagay wadanka Turkiga kadib markii uu helay casuumaad rasmi ah oo uu ka helay dhigiisa wadankaasi Turkiga Bakir Bostog. waxaana booqashadaas ku heliyay wasiirka xeer ilaaliyaha qaranka Dr. Axmed Cali Daahir iyo xogayaha joogtada ee wasaaradda Xuseen Qaasim Yuusuf iyo la taliyaasha dhinaca sharciga ee wasaaraddaasi. booqashada 4 maalmood qaadatay ayaa waxaa labada dhinac ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada wasaaradood iyo labada wasaaradood ee cadaaladda ee Turkiga iyo Soomaaliya. iyadoo wasaaradda cadaaladda dalka Turkiga ay ballan qaaday dhismaha laamaha garsoorka Soomaaliya in ay qayb ka qaadan doonto. wafdiga ayaa booqday laamaha kala duwan ee garsoorka wadanka Turkiga sida golaha garsoorka, maxkamadda xeer ilaalinta, kuliyadda wasaaradda cadaaladda iyo goobo kale. siyaaya wasiirka cadaaladda Faarax Sheekh Cabduqaadir ayaa waxa uu dadaal dheer ugu jiraa sidii loo soo celin lahaa adeegga laamaha garsoorka ee heer federaal iyo heer degmooyin iyo waliba dayactirka xarunta wasaaradda garsoorka, tayeenta shaqaalaha iyo sidii dib u habeen loogu sameyn lahaa garsoorka wadanka. waxaana xusid mudan in dowladda Turkiga ay qayb ka qaadanayso dib u dhiska garsoorka Soomaaliya sida dayactirka xarumaha. dowladda Turkiga sidoo kale waxay qayb ka qaadanaysaa dib u dhiska dalka Soomaaliya sida dayactirka xarumaha dawliga, wadooyinka, bixinta deeqo waxbarasho. booqashada wasiirka ayaa sare u qaadaysa saaxiibnimada Soomaaliya iyo Turkiga ee wixii ka dambeeyay sanadkii 2011 oo booqashadii uu ku yimid madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo Muqdisho soo gaaray sanadkaasi, taas oo sare u qaaday caawimaadda Turkiga iyo beesha caalamka in Soomaaliya ay ku soo jeestaan. siyaaya xilka wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo ka hadlayay digniin loo jeediyay shirkadaha sida sharci darrada ah ugu sugan dalka Soomaaliya ayaa yiri wasaaradda macdanta iyo batroolka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay si dhow ula socotaa dhaqdhaqaaqa shirkadda ARC ee Shiinaha laga leeyahay, taas oo ayahan dambe si sharci darro ah baaris macdan qodis uga waday buuraha Simoodi ee gobolka ARC. howlaha sharci darrada ay wado waxay abuurtay xasilooni darro soo wajahday deegaankaasi kadib markii ay qoratay boqolaal maleeshiyaad ah oo ilaalinaya shirkadaasi iyo shaqaalaheeda isla markaana ka barakicisay dadka iyo dunyada deegaankaasi ay ku noolaayeen. dowladda federaalka ee Soomaaliya walwal ay ka muujinaysaa arrintaasi sidii hore u dhacday in shirkadaha sharci darrada ah ku jooga qaarkood wadanka aysan ka howlgali karin gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale badda iyo bariga Soomaaliya si looga fogaado xasarado iyo sidoo kale colaado ka dhaca gobolka. wasaaradda macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa shirkadda ARC inay si degdeg ah u joojiso macdanta iyo baarista sharci darrada ah ee ay ka wado deegaankaasi oo dhalisay xasarad siyaasadeed iyo mid nabadgelyo oo la soo gudboonaatay deegaankaasi oo muddo dheer nabadgelyo ay ka jirtay. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay uga digaysaa dhammaan shirkadaha caalamiga ah ee macdanta iyo shidaalka ka baaraya gudaha Soomaaliya in heshiis la'aan aysan shirkadahaasi baaritaan ku samayn karin, gaar ahaan kuwa heerkooda
uu ku hooseeyo habdhaqanka caalamiga oo ay isku dayayaan inay kula soo baxaan kheyraadka Soomaaliya kuna qaataan si raqiis ah oo aan waafaqsanayn sharciyada dalka u degan iyo xeerarka caalamiga ee quseeya ee macdanta iyo shidaalka. Shirkadda ARC oo dhaqdhaqaaq sharci darro ah ka bilowday Soomaaliya gudaheeda ayaa ku xadgudubtay shuruucda caalamiga iyo midka madaxa bannaan ee wadanka Soomaaliya ka turjumaya iyo guud ahaan midnimada dalka Soomaaliya iyo sidoo kale go'aanka qaramada midoobay ee ku wajahan Soomaaliya. Siyaha wasiirka warfaafinta oo ka hadlaya nabadeynta Soomaaliya ayaa yiri madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 7 Janaayo xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya kula kulmay wafdi oo hogaaminaya madaxa amniga iyo nabadgelyada ee Midowga Afrika Mr. Ismaaciil Jargu. Ujeedada booqashadan iyo la kulanka mas'uulkaasi Midowga Afrika ayaa ahayd sidii loo dardargelin lahaa nabadda Soomaaliya iyo in ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay soo afjaraan dagaalka lagu jiro kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Siyaha wasiirka gaashaandhigga Maxamed Sheekh Xasan Xaamud iyo madaxa amniga iyo nabadeynta ee Midowga Afrika oo shir jaraa'id Muqdisho si wadajir ah ugu qabtay ayaa waxay sheegeen in kulanka madaxweynaha uu ahaa mid muhiim ah. Waxayna sheegeen in labada dhinac ay ka wada hadleen xaaladda ammaanka Soomaaliya iyo in ay iska kaashadaan ciidamada qalabka sida iyo kuwa Midowga Afrika sidii ay u sii xoojin lahaayeen howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa sheegay in la isku gartay dardargelinta howlgallada iyo sidii Midowga Afrika uu sii xoojin lahaa taageerada Soomaaliya. Warbixintan ayaa ahayd midii ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta ee looga hadlayay waxqabadka dawladda ee toddobaadkii la soo dhaafay.